السلام عليكم سودو هذا صاحبيان تركيا أيا حريرك أجري إسرائيل جبي أهم بدلك تركيا أيا حريرك أجري إسرائيل ووروين فهمتي سو كلوا داقي دونا دنك كله وحيابها اللياب كله تبدل كده إماراتك أيا عاونة إسرائيل ووحلا ليابو كدي مركي فلاي دبي ديارة الإمارات كليهين أي أقلادين إن أي دولمات مالين كستكسر ميسو تل أبيب عاصمة دولك يحوق كويسة إسرائيل ووحلا يابله أوكي sidoo kale maxkamadda Israa'iil ee dambiga ku soo oogtay ninka la yiraahdo Netanyahu ayaa waxa ay ka diiday in la dib dhigo maxkamadiintiisa iyo dacwad dhageysigiisa iyadana waan kula wadaagi doonaa dhanka kale nin ka mid ah dadkii ay qafaasheen ururka Hamas 7 Oktoobar 2023 ayay muuqaal ka soo duubeen ninkaas waa nin Yahuudi ah waxa uu dirayaa fariin aad iyo aad u adag oo calaacala oo maaragta saameynteeda leh taasina waxa ay saameyn xooggan ku yeelan doontaa Netanyahu hagaag soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahay fadlan waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto sidoo kale muuqaalkaada like saarto ra'yigaagana halkan ka dhiibo waa mahadsantahay okay aan ku bilownay تركيا أيا وحى حريرك أجري جبيهامبا إسرائيل تان iyo markii إسرائيل ay bilowday duqeynta ay ku hayso reer Gaza dalal badan oo islaam ah iyo dalal badan oo aan islaam ahayn ayaa arintaasi aad uga soo horjeeday dalalka qaar waxa ay maxkamad u direen maxkamadda dambiyada adduunka waxa ay u direen codsi ay ku doonayaan in la soo xiro Israa'iilna lagu soo oogo in ay gashay dambi dagaal waxa kamid ah South Africa iyo wadamo kale oo badan ayaa ku soo oogay inta badan wadamadii islaamku ay ka gaabsadeen marka laga reebo wadamo yar oo Turkigu ku jiro xilliga wixii ka dambeeyay oo dhanba Turkiga xiriirkii uu la lahaa ee ganacsi ee ah inuu badeeco u gudbiyo in maraakiibteedu ay ku soo xirtaan Turkiga ay ku soo xirtaan waxa soo dhan caadi ka ahayn laakiin sidaas oo ay tahay waa uu cambaaray jiray furka ayuuna ku tuuri jiray halka iyadoo joogto اسبوع كهر waxa soo baxay markab u sida Israa'iil hub aad iyo aad u fara badan kaasi oo ka yimid dalka Jarmalka ka yimid oo hub aad iyo aad u fara badan waday ayaa waxa uu ku soo xirtay dalka Masar dekad ku taal Iskandariya ayuu ku soo xirtay markabkaasi waxa la sheegay inuu hub aad iyo aad u fara badan u waday wadamo badan ayaa diiday inuu ku soo xirto markabkaas laakiin uu dambeyntii Masar ayaa soo dhaweysay oo ogolaatay markabkaas in halkaasi lagu xiro bambooyinka uu xambaarsanaa waxa ay ahaayeen 150 tan oo hub ah oo bambooyin ah 150 tan ayuu xambaarsanaa markabkii marka wararka qaar waxa ay sheegayaan hubkii inuu halkaas dhigay in lagu dajiyay gudaha Masar hubkiina halka looga dusiyay Israa'iil sida ay wararka qaar sheegayeen halka wararka qaarna ay sheegayeen inuu hubkiisi wixii la laabtay laabashadiisi marka ayuu waxa uu sameeyay waxa uu ku xirtay dekad ku taala dalka Turkiga ayuu ku xirtay markii uu ku xirtay isla markiiba dadka shacabka ayaa arintii ka war helay dadkii markii uu soo xirtay kadib ay ku xoomeen iyagoo calanka Falastiin wata ayay markabkii dusha ka fuuleen way iska buuxiyeen Israa'iil ha dhacdo halkaas ka lahaayeen Falastiin ha noolaato hadallo noocaas ay meesha ka sheegayeen okay cambaarin weyn marka ayaa halkaas uga imaatay Turkiga dadkii shacabka ayaa ku kacay mucaaradkii ayaa waxa ay ka faa'iideysteen arintaas oo waxa ay sameeyeen kicin ay Erdogan ku kicinayaan dadkii waxa ay leeyihiin afkan waxa uu ka leeyahay reer Gaza ayaan heel u nahay oo waan cambaareynayna dhanka kalena nimankan buu kala shaqeysanayaa cambaareyntaas baa ku badatay marka isbuucii la soo dhaafay sidaas bay arintu ahayd okay maanta marka go'aan qaraar oo aad iyo aad u adag ayuu ku qaaday Israa'iil ninka Erdogan ahaa waxa uu gabi ahaanba u jaray xiriirka waxa uu sheegay Israa'iil in gabi ahaanba uu xiriirka u jaray dhan kasta dhan ganacsi wada shaqeyn kale wax kasta isweydaarsi kasta ayuu wuxuu sheegay in xiriirka loo jaray waxa uu sheegay in xiriirkoodu weligood uu soo noqonayn hada weligood inuu xiriirkoodu soo noqonayn inta ay ka joojinayaan dagaalka iyo dhibaatada ay ku hayaan reer Gaza iyo reer Lubnaan inaysan xiriirkaas uu soo noqonayn ayay maaragtay sheegeen arintaasina run ahaantii dhabarjab weyn ayay ku tahay Israa'iil sababtoo ah ganacsi badan ayaa ka dhaxeeyay inta kuma uusan ekaan marka waxa uu ugu baaqay dawladihii kale ama islaam ha noqdaan kuwii kale waxa ugu baaqay inay ayaguna xiriirka u jaraan marka arintaas wixii ka soo kordha waan idin wadaagi doonaa idin Ilaahay dhanka kale waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah Israa'iil waxa xirmay
eraboradii iyo dekadii ayaa xirmay halkaas ayaa waxa u galay nimankii ahaa Xisbullah ahaa ayaa halka dhunta u galay garoonkii diyaaradaha ugu weynaa Ben Gurion waa xirmay waxaana xiray nimankan gantaalay ku hurgufeen ilaa Maarso sanadka soo socda ayaa la sheegay inuu xirnaan doono oo maaragtay sida u xirnaan doono ma jirin marka diyaaradaha isku biimay kara oo ka degaya ma jirin halkaas baa la joogay diyaarado badan ayaa hakiyay diyaaradihii Yurubiyaanka ahaa oo dham ayaa waxa ay hakiyeen falaadiyadii ay ku aadayeen Tel Aviv waxa ay marka uga cabsadeen arrin la xiriirta ammaan darro way joojiyeen marka falaadkoodii laakiin mid la yaab kale waxa weeye Imaaraadka falaad Dubai oo Imaaraadka laga leeyahay ayaa waxa ay sheegtay in ay saacideyn doonto Israa'iil 7 maalinna ay falaad u diri doonto diyaaradaha falaad Dubai leeyahay ayaa 7 maalin waxa 7 maalinba waliba 8 maalin ay waxa sheegeen inay aadi doonaan Tel Aviv hada waa meeshii ahayd meel aan isku halay karin oo diyaaradaha kale ay ka baqeen ayay way u bareerayaan yacni kaalmo ayay ka wadaan inay saacideeyaan ayay ka wadaan bal u fiirso waxay sheegeen 8 maalin inay aadi doonaan taas oo ka dhigan in maalin kamid ah 2 mar ay bixi doonaan 7 maalin kamid ah inay 2 mar bixi doonaan ayaa halkaas ka muuqata run ahaantii arintaas ayaa waxa ay bulsho badan oo caalamka ku noqotay fajac iyo amakaag waayo wadamo aan islaam ahayn ayaa arintaasi ka gaabsaday dib uga degay ka cabsaday ayaduna u bareeraysa Imaaraadka dabcan Imaaraadka marka la eego dhaqamadiisana waxa la sheegaa inuu yahay mid aad iyo aad u qalafsan oo Israa'iil daba dhilif u ah sidaas baa la sheegaa waana sida saxda ah oo hadda ay cadaatay waxa uu yahay iyo sida uga dabalanayo iyo kaalmada uu siinayo iyo waa kan hadda ay cadaatay oo bulshada caalamka ayaa arkaysa walaa Dubai website-keeda ayaa la soo dhigay inay aadi doonto warbaahinta caalamka oo dhan arintaasi waa ay qoraysaa okay hagaag taasina waa taa awmaana marka qodobkan kale waxaa jira maalinkii 7 Oktoobar 2023 ay ahayd ururka Hamas waxa ay galeen xero ku taala gudaha dhulka ay xoog ku haysata Israa'iil weerar bay ka fuliyeen halka 1,000 qofood ay halkaas ku soo dileen dhowr boqol oo qofoodna waa ay ka soo qafaasheen dadkii halka laga soo qafaashay marka waxa ku jiray nin lagu magacaabo Alexander kaas ayaa muuqaal laga soo duubay marka ururadii iska caabinta ayaa muuqaal ka soo duubay muuqaalkaas baraha bulshada ayaa aad loogu baahiyay waxa uu sheegayaa ninkan in dadka Israa'iiliyiinta ah Yuhuuda meel kastoo ay joogaan ay ku cadaadiyaan Netanyahu in uu wada hadalka dib ugu noqdo si ay u soo badbaadaan waxa uu sheegay meesha inaysan ku haysan nadaafad caafimaad aysan ku haysan cunto xumo iyo biyo xumana ay ku haysato sidaas buu sheegay arintan ba marka waxa la leeyahay waxay cadaadis xoogan saari doontaa Netanyahu oo mar kale ay ku kici doontaa dadkii shacabka ahaa ee ku banaan baxayay arintaas dad mar kale ay ku kici doontaa baa la leeyahay cabsi weyn marka halkaasna ka jirta ninkan waxa la sheegay inuu nin Yuhuudi yahay waliba Yuhuuda ruushka ku nool asal ahaan inuu kamid ahaa waxa uu ku jiray dadka halkaas laga qafaashay uu ku jiray marka ninkan muuqaalkiisa warbixintiisa aad baa loo wadwadaa cadaadis xoogan ayay Netanyahu saari doontaa oo uu miiska wada hadalka imaado Hamas iyo ururadan kalena uu si rasmi ah wada hadal oo la yeesho awal dhowr mar baa la isku dayay in wada hadal xabad joojin wax la sameeyo la wada hadlo xabad joojin la sameeyo laakiin nimankan xaq jirka ah ee Israa'iil iyagu waxa ay rabaan xabad joojin ku meel gaar ah intay soo hubaynayaan soo hagaajinayaan intaas bay rabaan laakiin nimankan Hamas iyo ururada iska caabintu waxa ay doonayaan xabad joojin si rasmi ah u dhaqan gasha ciidamadooda inay meesha ka baxaan marka labada isdiido iyaguna ma rabaan ciidamadii inay saaraan kuwanina ma rabaan in ay sii joogaan okay ugu dambeyntii maxkamad ku taala Israa'iil tii dambiyada u haysatay Netanyahu ayaa hadashay Netanyahu waa codsaday marka maadaama ninkan kiisas loo haysto dacwo kuwaas oo ah musuqmaasuq iyo arrimo kale loo haysto waxa ay sheegtay in marag furki iyo cid kasto ku marqaati furi lahayd iyo cadeymihii wax walba ay diyaariyeen laakiin isagu waxa uu codsaday in dib loogu dhigo in maxkamadiisa dib loo dhigo laakiin maxkamadii ayaa ka diiday gabi ahaanba waxa ay ka diiday maxkamadda in dib loo dhigo maxkamadiisa December dabayaaqadeeda bisha soo socota ayuu maxkamadda hor imaan doona Netanyahu maxkamadda Israa'iil ayuu hor imaan doona dabcan waxa lagu haystaa hadda waxa ugu waaweyn waa musuqmaasuq cadeymihii iyo wixii baa la haystaa arinta marka hadii lagu helo oo lagu cadeeyo waxa ay sababi kartaa xabsi dheer inuu galo iyo xabsi dhowr iyo 10 sano inuu galo labadaas bay sababi kartaa wixii ka soo kordhay wada la wadaagi doona aad baad u mahadsantiin dad nagu cusubtaan nagu soo bir ra'yigaaga halkan ka dhigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh